عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ليلتكم بالخير. أبينكين الله يدين بركيه ميل كستو أديك داوانيسان حلي والبعد كسوغنتهين حالد والبعد جوكتين الله يدين بركيه هديات صومالي جوكتان هديات ميل كلا جوكتان سعد والبعد جوكتان صباح قلب هبين الله يدين بركيه عاو مقال عصب أو أسجنا قيمة أو كحل دونه سيدا diinta islaamka ay u tahay diin qayima oo sax ah oo qof kasta oo diinta islaamka daqiiqad ama second akhriya oo ugu soo islaamayo ugu qancaayo oo Allah subhanahu wa ta'ala qofkii la doono hidaayah oo siinayo. Muuqaalkan caawa waa muuqaal kale oo Netanyahu iyo tiimkiisa ama Yahuuda oo ku noqday argagax iyo walaahu ku noqday markay soo islaameen laba kamid ah wadaadadii Yahuuda oo magac ku lahayd xilligaasi ay soo islaamayeen Yahuuda dhexdooda wayana warku ugu badin daawadaha qaaliga ah oo ku soo dhawow daawashada muuqaalkaasi. wadaadadii Yahuuda ugu caansanaa Samuel bin Yahuuda oo iclaamiyay islaamnimadiisa wuxuuna ahaa caalim Yahuudi ah wuxuuna ka shafay sida ay Yahuuda ay u bedeleen kitaabka Tawreed waxay qariyeen waxa tusaya jiritaanka xaqiiqada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sidoo kale waxa soo islaamay Axabri Abdul Haq al-Islami al-Maghribi wuxuuna banaanka keenay daliil sax ah oo sheegaya jiritaanka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kutubka Tawreed Yahuuda arrinkaasi jaahil may ka ahayd mise wuxuu sameeyay arikan kadis oo dhankooda ayuu ku ahaa. mawduucan ayaan wax kamid ah uga hadli doonaa kaasi oo ah mid xiiso leh iyo saameyn badan ku reebi doona noloshaada walaalka qaaliga ah insha Allah. walaalka qaaliga ah waxaa soo islaamay qaar kamid ah wadaadada ama xibriyiinta ugu waaweyn ee Yahuuda. islaamnimadoodu waxay ahayd sida duufaan culus oo ku dhufatay madaxda Yahuuda waxayna banaanka keeneen sirta Yahuuda qarinaysay qarniyo iyo xaqiiqada in Tawraad la bedelay iyo in la qariyay jiritaanka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waxaa kamid ah wadaadadaasi islaamtay Samuel ibn Yahuuda wuxuu ku islaamay magaalada Fas ee Maghrib ku taala. wuxuu sheegay in waalidkiisa uu caalim ku ahaa waqtigiisa culumta Tawraad. Samuel wuxuu bartay cibriyada ama luqadda Israa'iil iyo fiqiga Yahuuda wuxuuna ku xildheeraaday. wuxuu sidoo kale bartay xisaabta injineeriyada iyo dhakhtarka. wuxuu soo islaamay markii uu ka gaaray culumta meel sareysa. wuxuu la baxay Samuel bin Yahya al-Maghribi kadibna wuxuu alifay kitaabka la yiraahdo بدل المجهود في إفهام اليهود وحنا نقضي كتب كلاجو رديو يهودا إلا يومانتا إسلامي مدي سوحي سامين وين كيالة يهودا هير أي جارين إني كريوايان جريتانك حتى وحو كشجي وحي إسكجاهل لجان كتبتو ذا كيالا wuxuu Samuel uu ku sheegay kutubtiisa ama kutubkiisa adilooyin fara badan oo muujinaya sida Yahuuda u bedeshay kutubka Tawreed. wuxuu sheegay inuu kutubka sheegay nabinimada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asigoo si cad u xaqiijiyay nabigeena iyo jiritaankiisa. wuxuuna banaanka keenay siro fara badan oo ku jira kitaabka Tawreed. wuxuu sheegay in si dadban loogu sheegay Tawraad magaca Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. haddii toos loogu sheegi lahaa waxa ay samayn lahaayeen inay bedelaan magaciisa sida ay yeeleen kuwa lamid ah ama ay kutubkoo dhanba ay ka saari lahaayeen. inta uusan islaamin waxa uu u jeestay inuu barto culumta isbarbardhigga diimaha gaar ahaan islaamka iyo Yahuuda. wuxuu dhahay nafsadaydu ayaan ku noqday kala duwanaanshaha dadka ee madaahibta waxaan ku hanuunay waqti aan ku wareersanaa arrinkaasi inaan qaato diinta islaamka kana soo baxo Yahuudiyada. kadibna wuxuu yiri waxaa xigay muddo aan bulshada ka baqayay ama ka gaabsaday inaan sheegto islaamnimadayda
wuxuu ku sugnaa xaaladaasi sannado nafsadiisu ay leedahay islaamka, laakiin uusan ku dhiiran karin arrinkaasi maxaa yeelay muusan haysanin daliil iyo xujooyin cadcad. wuxuu bilaabay inuu raadiyo akhbaarta saxda ah, wuxuuna ogaaday inaan la helaynin ilaa dhanka muslimiinta mooye. marka loo eego diimaha kale loo eego sanadka axaadiista, waxaa ii sheegay fulaan ibnu fulaan ilaa lagu geeyo nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. yahuuddu awood uma lahan inay u tiriyaan nebi ciise ilaa iyo nebi muuse axaadiista ama silsilada wixii laga wariyey sax hadday tahay. wuxuu dhahay samuel wuxuu akhriyey kutubta taariikhda islaamka, wuxuuna si badan u akhriyey siirada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam, wuxuuna u akhriyey si ay ku jirto khushuuc iyo macaansi. wuxuuna ogaaday wax walba oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ku saabsan dhalashadiisa, sida uu ugu noolaa agoontinimada, sida ay qoomkiisa reer qureysheed u galeen, sida uu allah ugu nasreeyey ugu guuleeyey dagaaladii uu la galay gaalada. waxaana xaqiiqsaday buu yidhi markaasi kadib inuu yahay rasuul alle soo diray. wuxuuna kala kulmay yuhuudda radiin fara badan, kuwaasi oo nebi maxamed ceebayn iyo naxeeb. ilaa waagaasi ma uusan shaaciysan islaamnimadiisa, isagoo ka baqaya inuu aabbihiisa ka naxo uu ku wareero. wuxuuna ahaa mid kalabalabaynaya ilaa ay ka kala tageen oo uu dhanka bariga u soo safray oo uu soo aaday ardu shaam. uu ka soo tagay maqrib, wuxuuna ku milmay muslimiin fara badan. wuxuuna uu riyo ku arkay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. isla habeenkii uu nebiga arkay ayuu subaxiina islaamnimadiisa uu qaatay. wuxuuna ku fasiray asbaabta uu u qariyay islaamnimadiisa 2 arrin oo jirtay awgeeda. wuxuu dhahay waxaan dhahay inaan sheego arrin aan daliil u haysan, maxaa yeelay waxaa igu soo degdegaya kuwo beeninaya, waana arrin naadir iyo dhifa marka la joogo yuhuudda. midda labaade waxaan nacay inay maqlaan labadayda riyo kuwa i xasdaya ee waddanka jooga. waxa uu alle ugu manaystay cilmi ah kaasi oo ay ka dhigayaan in laygu cayo aniga iyo diintayda iyo madhabkayga uu arkay awgeeda. riyadayda ay ka dhigaan mid beena sida ayaan u baqay ilaa kutubkayga uu ka soo baxo ama ka soo shaacbaxo oo dadkao dhan ay akhriyaan una fahmaan waxa aan madhabkayga yuhuudda uga tegay iyo asbaabta inay tahay daliilkaas aan haysto. arrinkaas ayaan qarinayay aniga u turayay sidoo kale aabbahay inaan u baarin ama falo sababteeda. kadibna waxaan bannaanka soo dhigay qisada manaamayn, maxaa yeelay waxay ahayd waano alla ka timid iyo fariin. waxay tahay in la sameeyo iyo inaanay ii bannaanayn inaan dib u dhigo sababo waalid iyo qayrkoodba. waxaan kitaab u qoray aabbahay, xalab ayaan ka qoray suuriya, waxaana u qoray xujooyin iyo daliilo aan inkari karin inay jiraan. waxaan sidoo kale ugu xusay buu dhahay labadayda riyo. wuxuuna igu yidhi aan mawsil ciraaq isku aragno. waxaana uu si kadiisa uu ku yimid magaaladii mawsil asoo degdegaya. halkaasi ayaa jiro ku qabatay, halkaas ayuuna ku halaagsamay oo uu ku dhintay. ha ogaadeen 2 riyo inaysan ahayn inaan ka tago madhabkaygii koowaad ee yuhuudda. qofka caaqilka ah iskuma khiyaani karo diintiisa riyooyin u arkay bilaa daliil la'aan. hase yeeshee aniga waxaan ogaa wakhti fog daliilka iyo xujooyinka jiritaanka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. xujooyinka waa sababta labadayda waalid aan uga kala tagay ama aan uga tagay, balse hurdada ama aamusnaanta faa'iidadeedu waa inaad hubsataa. kadibna aan iclaamiyo kelimadda xaqa ah. kadibna geeridii aabbahay allah ayaan ku mahadsan kor noqoshada kelimadda allah, nuurka iimaanka, nuurka hanuunka. waxaana allah weydiisanayaa inuu nagu hanuuniyo waxa uu raalliga ka yahay. alxamdu lilah. allahuma salli wasalim cala aali muxamed.
kaasi waxa weeyaan waa qisada koowaad ee ninkii axbaabka ahaa ee soo islaamay. sidoo kale culimmadii yahuudda ee soo islaamtay waxaa ka mid ahaa cabdulxaq al-islaami al-maqribi, waxaana loo yaqaanay magacii islaami maxaa yeelay wuxuu ahaa nin islaamnimadiisa muujistay, wuxuuna uu soo muuqday qarnigii 14aad, wuxuuna ka tegay yahuudiyada, wuxuuna u muujistay islaamka, wuxuuna u bartay towraad si wanaagsan ayuuna u bartay, waxaana u caddaatay daliilka sax ahaanshaha ee nebi maxamed iyo diinta nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. wuxuu alifay kitaabka la magac baxay al-ixsaam al-mamduuf fii raddi al-yahuud, wuxuuna ka sheekaynayaa nasabka ama naska shareecada islaamka iyo xiriirka ay kala dhexeeyo diimihii hore ee samaawiga ahaa, wuxuuna uu ku soo bandhigay jiritaanka nabigeenna sala allahu calayhi wasalam, daliilka ku jira towraad iyo qeyrkooda, wuxuu ku soo bandhigay baadida yuhuudda iyo beentooda, wuxuuna in badan kula dooday yuhuudda, wuxuuna uu kutubkaasi uu u soo saaray inuu ku muujiyo dareenkiisa iyo diintiisa. hase yeeshee yuhuuddu waxa ay ahaayeen kuwo u diida carruurtooda inay akhriyaan kutubta islaamka, maxaa yeelay waxa ay og yihiin sax ahaanshihiisa kutubta islaamka. haddii ay carruurtooda ay akhriyaan, waxa ay og yihiin inay ogaanayaan in diinta islaamka ay tahay diin sax ah, xitaa kuma kaaftoomayaan inay beddeleen towreed, kumana guulaysan inay sugaan in allah keligiisa la caabudo, kaas oo nebiyada ay ugu yeeri jireen, balse hadafkoodu wuxuu ahaa inay ka takhallusaan islaamka iyo ehelkiisa iyo inay qabsadaan caalamka ayagoo u soo maraya dhaxalka yuhuudda ama isirka yuhuudda ee ahaa dhisidda nacayb iyo dilalka nebiyada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. waxa ay in badan ku sigeen inay dilaan, mar waxay rabeen inay dhagax ku dilaan, marna waxay ahayd islaantii sunka ugu dartay raashinka, marna way sixreen. marka waa caadadooda oo waxay mar walba ku fikiraan inay dilaan. culammadaas yuhuudda ahayd ee soo islaamtay waxay ku ahayd saaciqa ama duufaan oo ilaa iyo maanta ay ku habsatay oo aysan filaynin, waxayna ku sii jireen moognaantooda, maxaa yeelay hanuunka waxaa loogu deeqaa cidduu allah la doono subxaanahu wa tacaala. walaalka muslimka ahow, waxaan muuqaalkan ku arkay inuu allah ka soo saaray yuhuudda dhexdooda kuwa rasuulka rumaynaya, kuwaas oo qaarkood ku qancay daliilka muuqda ee jiritaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam. allahuma akfinihim bima shi'ta وكيف شئت وأن شئت، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا والشكر العافية والشكر عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك مغفرة تشرح بها صدورنا وترفع بها ذكرنا وتسير بها أمرنا وتكشف بها وترفع بها ضرا إنك على كل شيء قدير. اللهم من أرادنا بنا سوءا فأشغله في نفسي وراحته وصحته وعافيته ورد كيده في نحري، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين، وارزقه أضعاف ما يتمناه لي. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أصلح بيننا ولا تجعل بأسنا فيما بيننا، واجعل بأسك على عدوك وعدونا. اللهم ارزق حنان الرزق، حنان الزوج والولد، ومالا حلالا بلا عدد، وقراءة القرآن إلى الأبد. اللهم ألجم فاه بكلمة لا إله إلا الله، وأسكن غضبه بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم استر عنه عيوبنا واستر عنا عيوبه وأظهر له محاسننا وأظهر له محاسنه وارضنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إني أسألك بحق السائلين وبأسمائك العظمى والحسنى أن تكفينا شر ما أخاف وأحذر. اللهم أطفي نار من شب لي ناره واكفني هم من أدخل علي همه وأدخلني في ذرعك الحصين واسترني بسترك الواقي. اللهم من عادني فعاده ومن كادني فكده ومن بغى علي فخذه ومن نصب لي فخذه بهلكه وأهلك. اللهم أردد كيدهم في نحورهم. اللهم اضمس أعينهم عني وخذهم أخذ عزيز مقتدر أهزمهم وأهلك أشاعيهم. إلهي هب لي فرجا بالقدرة التي تحيا بها الحي والميت ولا تهلكني وعرفني الإجابة يا ربي. ارفعني وانصرني وارزقني وعافني. اللهم رب السماوات والأرض كن جارا من شر خلقك كلهم أجمعين أن يفضر على أحد منهم أو أن يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت يا لطيف اللطف بي بلطفك الخفي وأعني بقدرتك. اللهم إني أنتظر فرجك وراقب لطفك فلطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. اللهم اكشف عني وعن المسلمين كل شدة وضيق وكرب. اللهم أسألك فرجا قريبا وكف عني ما أضيق وما لا أضيق. اللهم فرج عني وعن المسلمين كل هم وغم وأخرجني والمسلمين من كل كرب وحزن. يا لطيف قد حررت في أمري فتدبرني بخفي لطفك ولطيف صنعك في جميع أموري وما أعنيه. استعنت بك في كشف كل غمة فيسر لي بلطفك كل عسير أن تيسر العسير عليك يسير. اللهم واجعل لي صورا من لطفك يحول بيني وبين ما يؤذيني ومن يعتدي علي. أقول ما تسمعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولوا آمين. اللهم تقبل دعاءنا إن شاء الله تعالى. waad ku mahadsantahay daawashadaada sida wanaagsan aad u daawatay ducooyinkii ka dambeeyay dhammaanteen allah inoo aqbalo meel walbo aad joogto waxaan ku leeyahay habeenku caafimaad ha kugu bariyo waaga sama ku seexo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.